جول كان أيوة حد ليي لاعب كأفري تونكو والتحول كقناة سومالية تضرب تبصنا الجردة سكريا محمد أيوة حد ليي لاست مينيت جول إن بعدهن سوماليا أنا كده جايصة إني كسب بحثي جروب كان taasoo ka adkaatay Suudaan Soomaaliya ciyaartan waxay u ahayd dhimasho maadaama ay ahayd kuwii ku guuleystay koobkan Sakafa inay difaacatan qasab ku ahayd maadaama ciyaartu ugu horeysay South Sudan ay si xun uga badiyeen Soomaaliya taasoo ka dhigan Soomaaliya marka ciyaartan inay ahayd ciyaarta ugu dambeysay South Sudan marka waxay ka badisay Suudaan iyo Soomaaliya oo isku group ahaayeen labaduba way ka soo badisay Suudaan iyo Soomaaliya marka iyo Suudaan isku baxayeen labadoodana waxay rabeen midkood in uu group ka soo baxo oo noqdo groupka midka labaad ee ku soo baxa Soomaaliya ayaa waxay ku guuleysatay ciyaarta in ay 80% si fiican u la ciyaarto Suudaan taasoo ka ciyaar fiicneed natiijada ayaa gadaal ka timid oo Soomaaliya ayaa gool dhalisay laacibka marka Sakariya ayaa u dhaliyay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta marka waxaa laga daawanayay TikTok iyo meelahaas laga daawanayay si fiican loo ma arkeen dad badan ayaa waxay rabeen in ciyaarta si fiican u daawadaan meelo kale oo live laga daawadana ma jirin ciyaarta marka anaga kor ayaan tartiib kala soconay ciyaartana xamaasad ayaa lahayd dadkii daawanayay ayaa live soo galay marka TikTok laakiinse waa laga xiray oo lama ogolo in ciyaaraha garoomada aad joogtid aad doobtid si live ah waliba marka ciyaartan waxaan rajaynaynaa ciyaaraha kale Soomaaliya in ay TV-da Soomaaliya tagaan ama Sakafa ayaga soo duubaan ay soo galiyaan sidii ciyaarihii hore u daawo jirnay markii Soomaaliya qaadayso koobkan marka Soomaaliya guul ay rajaynaynaa Soomaaliya waxa sidoo kale waxa ka dhaawacmay لاعب صادق سويدن كيمد أيا كذا وحنا سوماليا كاسو واحد بدن كوسو كورد لهاي كوحدة عن تدبر يتوسنا جردا لاعب كان معاد ماهن داوع يا كيمد لكيس هدا وحنا يلو جوجا ولي وتاجيرو يا وحنا رجينا إن أي كوجولستان كوب كان سوماليا